السلام عليكم. muxuu yahay filimka Soomaaliya ku saabsan ee Kuuriyada Koonfureed ugu sarreeyay isbuucii la soo dhaafay? Filimkan dagaalka ah ee ku saabsan Muqdisho wuxuu maalmihii la soo dhaafay noqday midkii loogu daawashada badnaa ee Kuuriyada Koonfureed. Haddaba muxuu yahay filimkan? Muxuuse ku saabsan yahay? Maxayse tahay sababta uu xambaarsan yahay filimkan dagaalka ah? Barnaamijka ayaan kuugu soo gudbin doonaa. Hase yeeshee inta aanan u gudbin barnaamijka, hadday tahay booqashadaadii kuugu horreysay ee channelka Pajero Official, channelka subscribe noo saar, gambaleelkana noo taabo. mahadsanid. filimka oo magaciisa la yiraahdo Escape from Muqdisho ayaa la baahiyay dhammaadkii isbuucii la soo dhaafay, wuxuuna noqday mid shaneemooyinka si weyn looga daawaday sida lagu qoray wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabay Yonhap. saacadihii ugu horreeyay ee filimka la baahiyay waxaa daawatay 561,000 oo qof intii u dhaxaysay Jimcihii ilaa Axadii. ilaa Arbacadiina waxaa daawatay ku dhawaad 1 milyan oo qof sida laga soo xigtay golaha aflaanta ee Kuuriyada Koonfureed. filimka oo ay ka muuqdaan laba jilaa oo caan ka ah dalkaas oo lagu kala magacaabo Kim Yan Song iyo Zo Jin Zhang wuxuu ku saabsan yahay sheeko dhab ah oo qabsatay diblomaasiyiin u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed oo ku sugnaa Muqdisho xilligii dagaalkii sokeeye uu ka bilowday dalka ee sanadii 1991. sanadihii 1980-meeyadii dalalka Afrika waxaa si weyn ugu hardamayay labada Kuuriya oo colaad ba'an ay ka dhaxaysay. Afrika waxay qaramada madoobe ka lahayd ilaa 50 cod xilli caalamka uu u kala qaybsanaa shuuciyad iyo hanti wadaag. sanadkii 1990 labadan dal waxay ku dagaalameen sidii ay u heli lahaayeen xubinnimada qaramada madoobe. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii awoodda lahaa ee codkooda laga raadinayay golaha loo dhan yahay UN-ka. sida filimka lagu sameeyay safiirka Kuuriyada Koonfureed ee Soomaaliya ku sugnaa Han Shin Sang oo uu matalaya Kim Yan Song wuxuu ku sii socday kulan uu la lahaa madaxweynihii Soomaaliya. wuxuu xilli sii horreeyay abaalmarin ku helay sida uu dalkiisa uga caawiyay inay hesho codadkii ay uga mid noqdeen qaramada madoobay. balse intii uu ku sii socday madaxtooyada wuxuu la kulmay burcad oo dhac u geystay. kulankii madaxweynaha sidaa ayuu ku baaqday maadaama uu dib uga dhacay ballantii loo qabtay. xilligaas wuxuu arkay safiirkii Kuuriyada Waqooyi Lim Yang Sung oo uu matalayo Ha Jun Ho oo la sheekaysanayay madaxweynaha. Kuuriyada Waqooyi oo xiriir dhow oo wanaagsan la lahayd dalalka Afrika waxay mar kasta ka horreysay Koonfurta Kuuriya oo xifaaltan adag uu kala dhaxeeyo dhinaca siyaasadda iyo sirdoonkaba. xilligaas mustaqbalka dowladda Soomaaliya ma uusan kala cadayn, haddana waxaa sii xoogaysanayay loolankii labada Kuuriya u dhaxeeyay sida filimka lagu jilay. waxaa filimka ka muuqda inta badan magaalada maleeshiyaadkii mucaaradka ka dagaalamayeen iyo isgaarsiinta dhan oo la jaray. markii uu dagaalka xoogaystay, safiirkii Kuuriyada Waqooyi waxaa weeraray dad ka caraysan dowladda Soomaaliya. kadib wuxuu magangelyo weydiistay safaaradii Kuuriyada Koonfureed oo ay boolis hubaysan ilaalinayeen. sida uu ku talinayo jaajuuskii Kuuriyada Koonfureed Kan Dian Jin oo filimka ku matalaya Zo Jin Zhang, waxaa shaqaalihii Kuuriyada Waqooyi loo sheegay in ay dalkooda ka soo goostaan, waxaana iyadoo la iska ilaalinayo loo ogolaaday inay ku sugnaadaan safaaradii xukuumadda Seoul ee Muqdisho. balse wada shaqayn la'aantoodii iyo kala shakigoodii wuxuu dhaliyay in ay murmaan. kadibna si lama filaan ah ayuu dagaal uga dhex bilowday labada dhinac. taas waxay dhalisay in ciidankii ilaalinaya safaaradda ay isaga tagaan halkaas, waxayna baylah u noqdeen maleeshiyaadkii hubaysnaa. waa sida filimka lagu jilay ee la sheegay in ay tahay sheeko dhab ah. wixii markaas ka dambeeyey, labada dhinacba waxay ilaaween wixii ay kala aaminsanaayeen, waxayna yeesheen hal ujeedo oo ah inay naftooda la baxsadaan. waxay ku carareen safaaraddii Talyaaniga oo ay ka sii raaceen diyaarad samata bixin ah oo halkaasi ku sugnayd. filimka oo ah 121 daqiiqo waxaa soo saaray nin lagu magacaabo Ryo Zhang Wang, waana mid leh xaalado kacsanaan iyo cabsi iyo argagax leh. sheekada waxaa mid dhab ah u ekaysiiyey qaabkii jilinka labada aktar ee caanka ka ah Kuuriyada Koonfureed. intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa sheekada filimkii isbuucan ugu daawashada badnaa Koonfurta Kuuriya. intaan ku kulmayna barnaamij nuucan oo kala ah sidaa iyo nabadgelyo.